بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعشر كتاب أها الواجبات المتحتمات المعرفة على كل مسلم ومسلمة بابك أصل الدين وقاعدته أمران أصل الدين دين تأصل كذا وقاعدته يدين كصليقة وكفر سنيو أمران لبا أرمودوي هذا سيغفير قفل بالله وهذا أرمودنا كسو أنت أي كلام دين كا وصليقة وكفر يستو يا أصل ما يلانيو هدانا لبداس كسو نين والولاء والبراء الأول كان كواد الأمر بعبادة الله وحده إلا إس أمرادتك الأمر إلهي كليو اللي عابدوه لا شريك له مثل وذاك وسنشرين عبادة ما أبو رستا عبادة مثل وذاك وسنشرين والتحريض إلهي أبو رتانك عدكو هاستو مجرد إلهي قال الله أبو رتانك ننمر دهين أدونك قال والبو مشركين مخلوق عابدان الله يقول دوادان مركا محيرة يعني حال الربا إلهي كليو اللي عابده والتحريض إلا قبوري على ذلك أركا ذاتك الله ويهيرو lagu dagaalamo la hirgeliyo ilaahay kaliya la caabudo wal mawalaatu in lagu jeclaado fihi fi tawxiid cidii tawxiid ku sugan oo shirki mushrikiin barika la jeclaado la walaalaysto kainan man kan qoladu doona u dhasho wadanku doona u dhasho midabku doona u yeesho meesha luqadu doona ku hadlo ilaahay ma wahida ha nabigiisa ma raacay ها مشركين دبري مكيها ولا لواء والموالات فيه هل كان محاكا بحي إن وطن لسكو ولا ريستو قوم يدلش لسكو ولا ريستو قبيالة لسكو ولا ريستو مذب لسكو ولا ريستو حرفت لسكو ولا ريستو دقان لسكو ولا ريستو قارد لسكو ولا ريستو وحاصلوا وبعض الحق إسلامك ولا لماذا حقا وامحي مد الدين تي إيمان كاوي إنما المؤمنون إخوة والموالات فيه تهدي نقدر دعوه قبل يديو قوم يديو مذبي إلهي بن آدم قوم أكل أبوره سانسو كلا جرانو لكن واحد ربع قوم كاجا أما قفك كل قبيل كا أما ولال كا إله أشري يلي إنه كاجا سكايو نين قوم كلا اللغة كلا كهدله أو مذب كلا له oo waligiin aydan isku firba ahayn aadam ka soo ka aydan isku fir ahayn isku midab ahayn laakiin ilaahay waxiday nabi maxamed raaci alayhi salatu wasalaam fiina marka mawaalida arinta muhiimada ay leedahay wal mawalaatu in lagu jeclaado lagu xiriiriyo lagu walaalaysto fihi fi tawxiid wa takfiiru in la gaalaysiyo kufri loo aqoonsado man taraka tawxiid ninkii tawxiidka ka taga shirki ku cibaadeysta ee dhaqan shirki wata ama mushrikiin walaalaysta in la gaalaysiiyo waa asalka koowaad waa ilaahay waxido adigu dadkana ugu yeerto tawxiidkaas cidii haysatana ku walaalaysato cidaan tawxiidka haysana gaalaysiiso waa saldhigga koowaad diintaada ku fariisanayso oo ninkii haysto ku sugan diinkiisu saldhig buu leeyahay almawaalaat baa la yiraahdaa ama alwalaa الثاني مد اللبات الانذار عن الشرك شرك لقى ديغو لقى فوقادو شرك ياسو الانذار عن الشرك في عبادة الله إلهي عبادة الشرك اللي سود حقليه شرك مركا لقى ديغو وشرك إلهي عبادة محمد القضاء إلهي بريض يساق لها أنا عدك الله برين ما قالك يساق لها أنا عدك الله ما قال إن إلهي الله كان سما طاعة يا أمرك يساق أسكلها إن طاعة يا أمرك شريعة عدك الله لقى قادم عبادة إلهي إن الشركي لا دحقلين أو ضدك اللي قدقو يعني مبدأ كوتهاي إن الشركي نعبتهاي أو مشركين التوحيد ويارس والتغليظ إلا قوك كان هذا على ذلك أرنكاس ما شركي وحبا مكوصا كلا نقل ضدك أما إلهي الشركي اسكداب كلية هاي كوبي ولا كب عبي ماها وخيال وحث وقال لي ما شركي هذا اللي وشيغو ninkan ilaahay qeyrkii buu caabudaa oo diin u ah soo ma aha gaal waaye muslimba ma aha marka gaalnimo inay waxba aysan kula noqon
oo tiraahdo dadka de shirkiga ku jira walaalaheena muslimiinta shirkiga ka baxaan dhihi lahayn islaam baadan fahmin markaas islaamkii alla nabi maxamed la soo diray ma aadan fahmin haddaad leedahay nin ilaahay u shariig yeelayaa muslim ah dadra ninka nabi ciise caabuday oo walaalkii muslima ka war ma waa gaal baad leedahay kristaan waa nabi ciise u caabuday kan jiilaana caabudana seebusa walaalka u yahay marka haddaad muslim tahay ma aadan fahmin marka tawxiid kiristaanka kama shakino inay gaalo yihiin yuhuudda kama shakino inay gaalo yihiin dadka ilaahay kheyrkii caabudaya ama shiicada ama suufiyada ama calmaaniyada kitaabka ilaahayba ka faanay see muslimiin ku yihiin bal fiiri waxaan idin xasuusinayaa halkaa kelimad yar baan rabaa inaan dhex gashado nairobi qiso ka dhacday sagaashameeyadii nin kiristaana oo baadari oo cadaan ah oo tukaan lahaa nin soomaaliya u shaqaynayay ninkan soomaaliga tukaanka waxbuu ka iibiya af sooxiliga si fiican buu yaqaana waana suufi googo-ay oo kuwa qaadiriyada ah wey baadariguna waa kiristaan ninkan meesha iskale cadaanka ah jimcaha marka ninkan gelinka hore jimcaha lasoo fasaxaa jimcuhu soo cibaadaystaa waa ninkan suufiga ah hadhow buu yimaadaa kana axaduu baxaa maalintii dambe yiri arbacada igu dar arbacada gelinka dambe fasax baan rabaa haddii kale shaqada ma wadayo maxaa dhacay buu yiri waxaan leenahay buu yiri jalsaan leenahay fadhi baan ilaa arbacada gelinka dambe maxay akhriyaan munaaqib baa la akhriyaa meel buu suufiyo isugu tagtaa nafacana allahu bihi baa lagu haynayaa bun lagu dubanaya jiiraan loo yeeranaya wuu yaqaanaa ninkan kiristanka marka waa nin xariifa wax badan og markaasuu yiri kuma fasaxayo aniga islaamku maalintooda ciidda jimcahan ku aqa jimcaha waa ku fasaxa laakiin maalin kale hataa saacadna kugu dari maayo isna kulama shaqeyna buuqa wuxuu yidhi haddaan kaa gara hela ma shaqaysanaysaa haa buu yiri maxaad arbacada soo samaysaa munaaqib baan soo akhrisanaa fadhi baan leenahay yiri fadhi culimadeenna ah wuu ogyahay marka kan fadhigiibuu soo baaray wuxuu ogaaday qaadiriina meel isugu tagto jiilaan u yeerata niman soomaaliya wadaaddaa loo yeeray marka laakiin murjia khawana wuxuu yidhi ka warrama dhexdiina nabiyullaahi ciise maxaa u taqaanaan ciise maxaa u taqaanaan buu yidhi asagu wuu caabudaa ilaah buu ka dhigtaa waxay dhaheen waa rasuul ilaahay oo sharaf leh weliba uu lacasmi min rusul ku jira isaga iyo jiilaan yaa fadli badan buu yidhi markaas dhan iskuma dhowa waa rasuul ilaahay oo qof caadi ah jiilaan waa shakhsi muslimiinta ka mid ahaa kana waa rasuul allah soo diray waa ruuxullah wa kalimatu alqaaha ilaa maryama anigu nabi ciisaan caabudo waad igu gaalaysiiseen buu yidhi ninkaanu jiilaani buu caabudaa ma muslim ba mase waa gaal fiir adiga kiristaankaas subxaan allah waa nin soomaaliyeed see gaal u leedahay ninkaanu jiilaani buu u yeertaa arbacada inaan fasaxuuna igula dagaalsan yahay hadda si uu jiilaani usoo baryo usoo kitaabkiisa uga soo barakaysto munaaqabka usoo barakaysto anna nabi ciisaan u yeertaa waad igu gaalaysiiseen waxaad tirahdaan shirkooda ku jirta ay kufri kana jiilaani buu baryaa bal ninkan wax ku sheega markaasuu yidhi anigu jiilaani waa u yeertaa waa ku tawasulaa haddeer maqlaya hadda wixii aan rabana shay waa weydiisa shiikha barakadiisa wax walba ku helaa muslimna waa ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna maxamadu rasuulullah nimankii soomaalida wadaadada ahaa ninkii xukun waa saari waaye waan barya hadduu imaqlayaa buu leeyahy waana u yeertaa maal iyo awlaadna waa weydiistaa walaalo arrintaa ma fiicna subxaan allahi shirki weeye waa fiir adiga ninkii uu qoslay kiristaanka wuxuu yidhi marka hor iska tagu yidhi nimiya waa ma rabtaan biri xaqiiqana diintiina xataa xaqiiq ka sheegtaan maxaa yeelay asaga waxaa lagu gaalaysay ciisuu caabuday laqad kafara aladiina qaaluu in allaha taali halaatha see kana u gaaloobi waayo jiilaana u yeerta maal iyo awlaad iyo caafimaad weydiista yacni shirkigan waxba nala ahayn oonan ku adadkayn والتغليظ في ذلك وانا ارنتا كو ادك تahay oo shirkiga mushrikiinta nacab tahay wal maadatu inaad ku culaadiso fihi fi shirk ninki shirku jiraad ku culaadiso barika taal raba wa takfiru man fa'alahu inaad gaalaysiiso ninka shirkiga sameeyo oo diinta u yahay ficilkiisu shirki yahay ilaahay geerkii baryaya ku tawasula u yeeranaya magan galaya kaafir waa inaad gaalaysiisana al baraa kan kale inaad jeclaato oo xiriirsa al walaa labadaa ninkaan lahayn diintiisu saldhig iyo fadhi ma leh waana lumay ilaahay waxaan ka rajaynayaa dad badan inay fahmaan mas'alatu alwalaa walbaraa intaa way kasii ballaaranta insha allahu tacaala haddii ay ku caddaatana u jixin mayso qofna ilaahay hor istaagiisa ka weyn bini aadan raaligelintiisa wajazaakum allahu khayran wallahu subxaanahu wa tacaala aclam